qufac kasta oo ka badan 3 isbuuc wuxuu u baahan yahay si taxaddar leh in loo fiiriyo. qufac kasta ma ahan inuu bukaanka qabo cudurka loo yaqaano qaaxada ama TB. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga waa Tawalwaan Xaashi Dhiif, daktarka cunaha sanka iyo dhagaha. Mawduuca maanta ka hadlayna waxaa la dhahaa qufaca soo laalaabto ama qufaca raago oo waqti ka badan 4 isbuuc qaato. su'aalaha ugu badan oo ay soo weydiiyaan bukaanada waxaa kamid ah in ilmaha yar ama dadka waaweyn ay ka cawdaan qufac aan dhamaad lahayn. qufaca waa hab difaaceed Ilaahay ugu talagalay jirkeena inuu isku difaaco. qof kasta oo nool ama bil'aadana wuxuu sameeyaa qufac normal ah. haddii uu ku dhaco caabuqyada hargabka ama xasaasiyadda wuxuu keeni karaa qofka inuu qufaco. laakiin mawduuceena maanta wuxuu daaran yahay 6 calaamadood 6 cudur oo keeni karo in aad yeelatid qufac raago oo mar walba soo laabto. calaamada ugu horeysa waxaa la dhahaa ama waxa ugu horeeya waxaa la dhahaa postnasal drip. postnasal drip waxaa waaye in postnasal drip waxaa waaye sanka iyo sanqaroorka waxay leeyihiin qoyaan mucus la dhaho kaas oo lagu soo dareeriyo ama la keeno sanka. waxay keeni kartaa qoyaankaas ka imaanaya sanka ka soo dhacaya ee imaanayo mataqaanaa pharynxiska ama qaybta dambe ee cunaha imaanaya wuxuu keeni karaa inuu irritation ku sameeyo qaybta dambe ee cunaha kadibna qofkii uu bilaabo inuu qufaco. qufacaas ma dhamaado ilaa iyo xal laga gaaro waxa loo yaqaano postnasal drip oo meesha laga saaro. for example waxa keeni karo postnasal drip bukaanada qabaan xasaasiyadda ama caabuqa sanqaroorka loo yaqaano sinusitis-ka. haddaan ciladahaas la xalinay bukaanka mar walba wuxuu u soo laaban doonaa dhakhtarka si looga daaweeyo qufaci raagay. kan labaad waa neefta. bukaanada qaba neefta waxay caan ku yihiin inay yeeshaan qufac qalalan oo u badan habeenkii ama subaxii hore ee waaga bariga. mararka qaar waxaa dhici kara qofka neefta qaba inuu ku dhaco hargab kaasoo keeni kara ama kasii dari kara xaaladii. bukaanada qabaan neefta waxay caan ku yihiin mar walba inay soo celceliyaan ama ay la yimaadaan qufac aan dhamaad lahayn taasoo shaki gelin karta bukaankii inuu isweydiiyo waxa keenay qufaca soo laabto. ka saddexaad waa bukaanada qaataan daawooyinka loo yaqaano AC inhibitorska ama daawooyinka loogu hortago dhiigkarka iyo wadna xanuunka. daawooyinkaas waxay keenaan qofka markuu muddo wado qufac qalalan oo soo laabto. haddaanan bukaanka wareysigiisa lagu darin inuu dhiigkar qabo inuu daawooyin qaato dhakhtarka ma heli doono xalka. sidoo kale waxaa kamid ah bukaanada qabaan gaaska jardiga loo yaqaano ama laabjeexa Soomaalidu waxay u yaqaanaan kaas oo ay keenayso cuntada caloosha ku jirtay inay soo aado tubada cuntada qaada kadibna ay imaato hunguriga kadibna bukaankii uu bilaabo inuu qufac badan sameeyo taas oo sababi karta bukaanka inuu raadiyo xal. haddii dhakhtarka uu ka fakaro waxyaabaha keeni karo ama soo celcelin karo qufaca raago uu helo xaaladan waxaa fududaan doonta bukaanka inuu helo daawo ku habboon. sidoo kale bukaanada qabaan infekshanada qaarjeexa pneumonia loo yaqaano waxay aad loogu arkaa ayagana inay qufac yeeshaan. sidoo kale bukaanada qabaan caabuqa bronchitis-ka ayagana waa lagu arkaa. sidoo kale bukaanada qabaan emphysema waxa loo yaqaano ayagana waxaa lagu arkaa qufac raago oo ka badan 4 isbuuc inuu soo laabto. mararka qaar waxaa lagu arki karaa bukaanka in naqaskii uu ku dhago ama ay yeeshaan qufac xaako kalar la inuu bukaankii tufo. calaamadahan haddaad isku aragto fadlan nala soo xiriir si aan kula raadino xal waara.